halkani waa deegaanka Habaasley oo qiyaas ahaan 37 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Cadaad ee gobolka Galgaduud. Deegaankan waxa ka jira xaalado nololeed oo aad u daran. Waxa uuna ka mid yahay deegaanada sida baan ay u saameysay abaarta guud ahaan dalka ku dhufatay. Qoysaska degan deegaankan oo inta badan xoolahoodii ay dhaafisay abaartu, qaarkood waxay ka cabanayaan in ay heli karin baad iyo biyo midna. xoolaha yar ee u harayna aysan ku heli karin qiimo lacageed haddii ay suuqyada geeyaan. Mar aynu booqano deegaankan Habaasley waxay sidoo kale dadku noo sheegeen dhibaatooyinka ugu badan ee xilligan haysta in qayb ay ka tahay biyo la'aantu, balse intaas oo dhan waxa deegaankan u dheer in xilliyadii dambe xaalado caafimaad darro ay ka jireen deegaankan. Qoysaska qaar oo aynu booqano waxay noo sheegeen in xanuuno safmareen ee deegaanka ay ka jiraan, taasi oo sababtay in qoysaska qaar dhammaantood loola cararo isbitaalada magaalada Cadaad si halkaasi xaaladooda caafimaad lagula soo tacaalo. Sida uu noo sheegay Maxamuud Axmed Dhagacad oo loo yaqaan Digis oo in ka badan 20 sano ku noolaa deegaankan Habaasley. waxa run caafimaad male hadda xanuunada dadka loo qaadayo hadda soo lagu qaadayo meelaha oo ay ka jiraan xarumaha isbitaalada markii qofka ay caafimaad darro soo wajahdo marka koobaad waa diin saarnaa, marka labaadna waxaan la aadnaa meeshii maartay ay joogto dhaqtar joogo Cadaad oo kala deegaankeena ma laga helo wax qof cirba qof ku mid taqaan ba laga helo hadii macad wadalka hadda ciidan iyo laguma arka dad waa ka tagay dadka Cadaadaha la iska geey shuban munqaaco xanuun ilaahay ka qaadi karo. deegaanka waxa ku jira kow waxa ku jira dhiig la'aantana waxa keenayna nafaqo yar kow ka bacdin inta kale waa ku aruf. xaaladaha caafimaad darro ee deegaankan soo food saaray ayaana mushkilo hor leh ku abuuray dadka degan deegaankan oo markii hore la daala dhacayay saameynta abaartu ay ku reebatay. sida uu noo sheegay Daahir Cismaan Yarow oo loo gara og yahay timo xoolo kana mid ah dadka deegaankani dega. waxa helay naqafaal aan baahsan oo caana la arag lama yaqaan, galaas caana ari laga cadeeyo shaah lama yaqaan. waxa lagu cadeeyaa jalamada markii la kariyo shaah la saaro dabka caana boora lagu cadeeyaa. caana boodeed hadda qof aan heli karin jiro, waa qofka ugu fiican oo hela. Irtida weed ma annaan arag gugii horena ma fiicnay, diraacdii xoolihii waa xaaseen. maadaama abaarta ku dhufatay deegaankan Habaasley ay qoysas badan dhaafisay xoolahooda, waxaa halis ku jira nolosha qoysas badan oo halkani degan maadaama aysan awoodin in ay helaan dhaqaale ay kala baxaan cunto iyo biyo midna. waxaa jiro kale biyo la'aan aad wax u naafaynaysa. xoolaha neef laga tahay kama jiro, gadashadu way ku fududahay. ninkii hal lihi waa dhacdaa inuu rti ama ka gato ama hal abu ka gato, laakiin arileyda qaabkeedu ma ay fiicna. qaabkoodu waa xun yahay, way ka waayeen waxay ka maalaan iyo waxay ka gataan iyo waxay ka qashaan toona waa ku yaraaday. biyo waa qaliil ba hadda fuusada biyaha waa $1 halka $1na cidda arigeeda aryaalaha haddaad aragtiin dadku deegaan kale ma haysto, xoolo kale ma haysto dadku.